الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلال كان يقول إسكفر ديو دلوا إسكوه اللي مايو إن أنا الكفولي واي أنا إسكفر ديو لولا إسكوه اللي ماي وحنا أدوك فرح سنة هاي مرتقات كان يقول مرتقى ذي هبين كان قالق يعني كده فرن بوجه ولا ورن وأقل كي محمد إبراهيم ورسمها تراوي جيتك حاجة يوم قاعد بدن وكله إلهي وحين وقبر يناينو عافمات سراع نسيو لما أنتي نو حين تكون سنة يا إن أود عيسان محمد إبراهيم ورسمه أو سيدي وقارية يريها سيدي وقارية يري هلا ليانا هاي هيلين كان يفتين شان نكور شوبه هلا علوليانا هاي هيلين كان يفتين شان نكور شوبه سيدا سوري قارية وكور شوبه وكل انتي محمد إبراهيم ورسمه دريقي وهيا إن بدنو ينقم مدينة وهيسا هو لورن سيدا هم قشين بانو مغلي دبيدنا نقول بان هلي وايسكا قرانيسا هدراوي عاوين لما تشوقو مقالة uu joogaa laakiin tibuu soo tahli waayay inuu halkan yimaado dabeedna qaar badan oo iikayda ka mid ah ayay waxay odhanayaan ama ku sheekaystaanba inaan ka yaray maxamed Suleymaan mala isaga waxaan iska qorqortay سياد كوبيسو إنه محمد إبراهيم ورسم قري وأي فرتي سيتاي هي إنكله محمد سليمان عمرنا وقمينا برن سداس وقف دورسون أو قيمة له وداير تسوق عيسى كالين تبحين دونها دي الله ينادو أنا يقوم عصبة horaan uu wada hawl galay imikaanu hawl ku wada jirnaa markaan maxamedna waan u mahadnaqayaa buuga markaan soo qaatay dabeedna gogol dhiga aan eegay fursame in badan baa arkay isagoo tira ka la hagaajiyo ma haysay in badan baan aragnay isagoo tixtirinaya أنا كوني سجال بقول يلحي سديتنكي مرو شوقي أجا كونفراد يا سنم أما سلقي باري برجي وتري ما صدي سرت نرشة أيو 40 كسوق باري ترابة محمد إبراهيم ورسمه محمد إبراهيم ورسمه تراب وقراءة أنا خريطة سايقول رئيسي وحبا بان هاي تري مركان وصل نقطة بوجه ولا ورن محمد إبراهيم ورسمه مركان قرال كأنه قرال كأسان كوه جاي تبعد نوان قرتين فرد راوتاي سياو حقيقة ستان سياو حقيقة ستان سياو حقيقة سنو قرالك محمد إبراهيم ورسمه وحسوق عدان جوجل ليجا محمد إبراهيم ورسمه وحكم بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جوا محمد إبراهيم ورسمه والله يقانوها تراوي سياسو كبلاوي يا دبنا وحكشة كينيا نولشي سي نولشي قويسكا أفر شن لينا مبارجراف كلابات أيوه حكيشة كينيا إنه كذا شيء قويس aad u saboola
oo ku tiirsanaa taageerada iyo kaalmada xigtada maansadiisii ama tixdiisii markaad dhex qaado ayaa waxaad dhex gelaysaa waxyi markaasaad eegaysaa maxamed ibraahim warsame oo iska sheekaynayaa soo aabbo weydiiyo wax mahaysta ima dhalin walacsiga nin hodan iyo soo wiirsi kuma korin soo geel ma wadi jirin weris caana kama dhamin hurre lama walaalihi ina walawal maalihi markaasaad garanaysaa inay labadu isu imanayaan maxamed ibraahim warsame markaad eegto hawaalo waran ee aad ku darto halkaraan ayaa waxaad soo xasuusanaysaa macallin dhoodaan beyduu lahaa nimankii soomaali galbeed ee dagaalami jiray ayuu teed walba wuxu dhigayoo dabeedna waxba way garan waxba way maqli waayeen markaasuu gabay kala tiriyo markaasaa wuxuu leeyahay bal si kalena aan kuugu sawiro saad u garataan maxamed ibraahim warsame markuu tixdii inagu dhameeyey sidii taxliisha ayuu wuxuu taaganyay bal tu kalena aan kuu sawiro saa u garataanoo halkaraan iyo dhaxal tiraaba ayuu inooga tegay maxamed ibraahim warsame macallin joogtaa oo nololeed buu ahaa la socodka aad la socoto ayaad wax baranaysood arday noqonaysa maalin annagoo hawdkaa maraynaa snmt ayaanu makhaayad soo fadhiisanno annagu markiiba intaanu caranaanu madbaha geli jirno haaf bariisa iyo uslad hiliba iyo wax la soo carari jirnay hadraawi wuxuu aad u danayn jiray uga feejignaa waxa afkiisa gelaya dabeedna makhaayad uu hor fadhiistay karuur geel baa loo keenay markaanu soo baxayna baa wuxuu nagu yidhi iyadoo shaarubuhu cad yihiinoo xoorkii ku yaallo karuur geel haddaa maqashaan dhowr iyo 10kii May 1980 dhooba guduud baanu joognay maalin baanu madashii shirka ka soo dareernay waanu qada doonaynaa uu naga hadho dib baanu ugu noqday waa geel soo fulay oo baar sidaa hareeraha kolba kaga wareegayo maalintaana wuxuu sheemid haddaad maqasho waa taasoo kale sidaasuu macallin nololeed u ahaa badan kenya ayuu ahaa maxamed ibraahim warsame maxamed siyaad barre wuxuu dhaqan u lahaa qofka markuu xidhuu sii daayo maalinta la sii deynayo qofka ugu hor arkaya isaga u ahaa dabeedna mashqac buu gelin jiray oo wuxuu eegi jiray inuu toobadkeen yahay iyo in kale maxamed ibraahim warsame oo 5 sannadood kasoo tuuraa loo keenay markay hadalkii dhammaysteen buu maxaad u baahan tahay markaasuu yidhi waxaan u baahanahay gaadhi qansax dheere geeya waa halku ku xidhnaaye si aan u soo macasalaameeyo dadkii aanu wada noolayn ee aan 5 sannadood la joogay maxamed siyaad barre mar buu ku celin gaayay jeerkii oran gaadhay weli ma bislaanin qofkani adeeg gaale ayuu ahaa qof aan munaafiq ahayn weeye hadraawi maalin aan wada qaylaynay bishii March 1980 xafiiska Diridhabe iyadoo laga hadlayo qolo saraakiil oo xidhnayd ayuu nin ka mid ah ninkii meesha fadhiyay nin ka mid ah dadkii meesha fadhiyay ayuu kana waa hilbahaygii waxaan kaasa shubay jeeg biyaa intuu la dul tagay ayuu madaxa kaga dhuftay markaasuu yidhi munaafiq xaajiga dibadda aanu saarno golaha xaal si baan haddana intuu soo noqday ayuu yidhi golaha xaal baan siinaya laakiin tii ninkaasi kuma jiro xaajigu sidaasuu ahaa halgankaasuu soo galay ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu caafimaad siiyo maxamed saleebaan cali jaamaca guush baasaale oo aanu maantii xalayba wada hadlaynay oo Diridhabe joogaa isagana waanu uga mahad celinaynaa shirkadda Sagal Jet iyo Dahabshiil iyagana waanu mahad celinaynaa waxaan u dhiibayaa mikrofoonka nimaydaan garanayn halgan wadaag ay yihiin hadraawi jabhad
SSDF ka soo dagaalamay SNM-na ka dagaalamay 84kii SNM ku soo biiray oo ka soo ciyaar guday magaalada Garowe Cabbaas Axmed Cabbaas baa la yiraahdaa halkan u fadhiya isaga ku wareejinaya waayo